kadib burburkii Soomaaliya ee dhacay sanadii 1991 isla markaana uu dalka maray marxalado kala duwan ayaa hadda waxaa muuqanaya hanaan xilligaasi ka gedisan magaalooyin badan oo hoos taga nidaamka dawliga ee federaalka waxa ay bilaabeen ka soo kabasho wanaagsan oo ay hadda dadka la dhacsan yihiin magaalada Kismaayo waa caasimadda saddexaad ee Soomaaliya sidoo kale waxa ay xarun ku meel gaar u tahay dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland waa goob markii bariismaadkii dib loo milicsado ahayd goob bilic qurxoon oo hareerta ku haysa biyaha badweynta Hindiya hadda waxa ay ka mid tahay meelaha laga dareemayo hanaanka dawladnimo ee dhismooyinka bilicda wanaagsan halkani waa guriga martida oo la dhisay markii Jubbaland ay magaalada la wareegtay aragtidiisa waa meel ishii aragtay ay ashqaraarto oo durbo maanka ka saaraysa in goobta uu ku yaalo ay tahay dhul muddo dagaal sokeeye ay ka jireen haddaba maxaa gurigan lagu qabtaa yaasi ku hoyda markii aan gaaray ayaan su'aashaasi weydiiyay agaasimaha dhismahan Cabdirashiid Aadan Cabdi runtii waxay hadda furan yihiin oo ay shaqeynayaan muddo 1 sano iyo 2 bilood ku dhawaad ah waxyaabo badan oo horumar ah oo waxay u soo kordhiyeen Jubbaland wax badan bay u qabteen hadii aan lahayd culayska martigelinta oo dawladda culays ku hayay dadka madaxda ah oo ku imaanaya janib iyo madaxda kale Soomaaliya in ay helaan goob ku haboon deganaansho ka tarjumaya horumarka iyo bilicda ee dawladnimada ka jirta deegaanka taas runtii aad loogu dadaalay waana la helay si fiican baana hawshooda iyo service-kooda iyo cid walba ula dhacdaa goobta guriga ku yaal istiraatiijiyadda iyo amnigeeda meel ku haboon weyn ay degaan dadka madaxda marka runtii qayb bay ka tahay bilicda iyo horumarka iyo waxqabadka dawladdu soo kordhisay muddadii ay jirtay aqalkan ayaa waxaa si weyn loogu xusuustaa martigelintii shirarkii madasha wada tashiga oo dhowr jeer lagu qabtay Kismaayo qoraantii sanadii aynu ka soo gudubnay waa kan agaasima Cabdirashiid oo mar kale ka sheekeynaya waxaa ka mid ah sanadkii hore bishaan hadda lagu jiro oo kale bishii January waxaa lagu qabtay halkan shirkii wada tashiga Soomaaliya oo ay yimaadeen dhammaan madaxda Soomaaliya madaxda maamul goboleedyada madaxweynaha gudoomiyaha baarlamaanka dhamaantood ay halka deganayeen oo lagu shirayay oo la joogay 7 bari kuwooda ugu badan ay joogeen 9 maalmood runtii shirkaas oo la wada ogaa qaabkii aan u martigelinay iyo capacity-ga ee muujisay dawladda Jubbaland gurigan qayb weyn buu ka ahaa oo deegaanka meeshii la deganaa ahayd oo shirarka iyo wax walba lagu qabanay marka dhacdooyinka waaweyn oo taas ka mid ah laakiin maalin walba dad madax ah mas'uuliyiin ah oo nooc kala duwan ah baan qaabilaa oo soo dega dhanka kale haddii aynu ka eegno gurigan loogu magac daray aqalka martida Jubbaland ayaa waxa uu noqonayaa midkii ugu horeeyay oo noociisa laga hirgeliyo magaalooyinka waaweyn ay ka arrimiyaan dawlad goboleedyada Soomaaliyeed waxana uu gaar u yahay Jubbaland oo kaliya
ilaa iyo hadda waa annaga meeshii ugu horreynay oo dowlad goboleedyada Soomaaliya samaystay xarun gaar ah martidooda ma maqal anagu hadda wali cid kale oo samaystay laakiin tallaabo wanaagsan oo dadka maamul goboleedyada kale madaxdooda ay wada riyaaqeen una muuqato in lagu dayan doono bay u egtaa. aqalka loogu magac daray ee martida ee ku yaala magaalada Kismaayo xarunta gobolka Jubbada Hoose ayaa dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland waxa ay ku talagaleen inay dejiyaan martida kala gedisan ee timaada degmada Axmed Laqaayo wararka STN magaalada Kismaayo.